دولة هذا كجرت الصومالية مدحوينها الشيخ مدحوينها كأ إمارات كصاحب ولا يحي بربلام هذا السوق مقبه السوق مقبه مركان لا يهانا وأكسايا كالمدرس محكوا ضعف مقبه تأمل فائدة قوا النبي عليه الصلاة والسلام لما كلا لهن نكمل مساج كجوجا يعني كسرتون كشقينا يكسياز كشقينا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأود الليه dadku waxay dhahaan xilligii fahad uu joogna wasugida xilligii ugu awoodda badneed siyaasadda looga isticmaal jiray fahad oo siyaasiyana waa arin fahad oo taliyana wasugidna waa arin kale falsafadii hore oo sirdoonka hadii waa laga soo tagay adduunka waagi hore falsafada sirdoonka waxay ahayd nolosheeda intii ugu dambeysay oo marna warbaahin baan ka shaqeynayay marna waxaan ka shaqeynayay siyaasad laakiin tababarkii la diyaarinayo hore inaan sheekh noqday ahayd macallin dugsi quraan waa noqday arday fara badan baan kiciyay oo quraan baray masaajid imaam waa ka noqday muddo dheer waliba haddii jidkaas aan kusii joogi lahaa waan u malaynayaa inaan markii imid si fiican baan u xasuustaa suuratul qasas safxada u dambaysa uu fasiray faqaraja calaa qowmihi fii ziinatihi qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya buu fasiray marka حتى أنا وحنا سلا عشر كوري وقات حتى سياسة وهاي. بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسود وهذا ورئيس جار أو عن لا يلنا إنه أقاسمي هراء نوسق الدقرنكا فهد ياسين حاج الداهر أهانا لتليه أمني قرنكا أقاسم كسود رسالتي في مركو هروح ربنا إنه كبلونه محاكو قد اللي يحل كان إن قرتي بوجا سويال كصوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أديك إيو تيمكينا رسالة وإذن ما دعلنا يا مرة دي دتكو أي مسلمين وحاسارا واجبات باكسارا قفكا دين تيسا واجبك كوان وحاواي وحي أعتقانا إلى قدبسو مركا وحي يقول لي وحي أهيد وحان دراسة كسمية جيلك سومالي هذا الجوجا waxaa soo baxday marka laba mushkiladood ama laba shay oo aan jirin anaga jiilkanaga inay hadda jirto midda koowaad waxa weeye luqadda carabiga inay hoos u dhacday oo awoodii luqadda carabiga ay lahayd ilaa 90meeyadii bartamihiisii hadda awoodii hore ma lahan jiilkii tacliinta hadda bartay luqadda carabiga waa ku yartahay gabi ahaan Soomaaliya iyo dadka dibadaha aadayba laga yaabo kuwa dibadaha aaday xataa Soomaaliga inay ka sii fogaadeen qaarkood mushkiladaas marka waxay noqotay qofkii haduusan luqadda carabiga aqoonin sidee buu siiradii nabiga kaleey salaatu wasalaam ku ogaanaya ama diintii uu ku baranaya tan labaad daraasadii iga soo baxday waxa waaye in ay yaraatay xalaqaadkii waxbarashada diiniga ah lagu sameyn jiray oo xawligii ku socon jirtay inuu hadda yaraaday ama si kale hadaan u dhigo jiilka dhalinyarada ay hadda jooga inay ku yaraadeen inay diinta inta bartaan masaajid fariistaan xir noqdaan wax bartaan inay ku yaraatay marka waxa fiican maadaama risaalada islaamku ay tahay risaalo caalami ah ummadoo dhan loogu talagalay luqad kastana loogu talagalay in afkoodii loogu geeyo wixii ay rabeen inay ogaadaan sadarteed labadaas sababood horta waxay ugu dhalisay inaan isku dayo bal Soomaalida afkooda inaan ugu turjumo oo aan u qoro buugana sida aan u qoro tarjuma ma ahan waa taaliif ama xurin sadarteed marka waxaan isiri labada baahi oo jirta waxa ku dabooli kartaa inaad afkii dadkooda kula hadashado wax ugu qortid maxaad ku dooratay in buugga kugu horeeyay uu noqdo siirada nabiga ama taariikhda nabigeena nabadgelyaha iskuulkiisa ahaatee maxaase muhiim ay kugu noqotay xilliga waxaa jiray intii de horta qofka hadii uu rabo inuu qiimo iyo wax soo saar umada ku soo kordhiyo waxa uu fiican waqtiga aadan dangood ku mashquulsanayn aad firaaqada haysato wixii aad umada u faa'iideyn karto iyo waxa adiga faa'iideysan kartaba inaad ku mashquulsho hadda kama hadlayo waxa aniga aan kororsaday waxaan rabaa inaan ka hadlo 2 sano iyo barkii ama 3 sano la soo dhaafay waxaan aad ugu mashquulay inaan 4 buug qoro 4 buug 3 kamid ah siyaasad mid sirdoonka ka hadlaya mid siyaasad ka hadlaya iyo mid taariikh ururada islaamiga ee Soomaaliya soo maray kuwoodii hubka qaatay ee xabada qaatay taariikhdoodii ka hadlaya marka buugtaas saddexda ah
daraasadan ku sameeyey waxay ahayd in soomaalida mushkiladaha haysata waxaan u bixiyey waxaa ka mid a nacas waxtar leh af carabiga waxaa lagu dhahaa alaxmaq almufiid marka alaxmaq almufiid iyo nacas waxtar leh waa useful idiot marka in aan helo soomaaliya mushkiladda haysato inay tahay doqomo ama dantii dalkooda aan garanaynin ama dan dalo kale nacfi u leh ama faa'iido u leh ka shaqaynayo saddexdaas buugna iyagana dhawaanay soo bixi doonaan sanadkan dhammaadkiisay soo bixi doonaan laakiin buugga afraad baa wuxuu ahaa sooyaalka suubanaha nabiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsanaa marka sheekh soomaaliyeed oo aan aada saaxiib u nahay oo dadka aan cilmigooda iyo tarbiyadooda aada u tixgeliyey ka mid oo sheekh cabdixakiin sheekh cali suufi la yiraahdo baa wuxuu isiiyey tala dhahaysa haddaad rabto inaad wax qorto ka bilow midka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka kuwaaga kale ay barakayn doonaan marka sababta aan usoo hormariyey waxay ahayd bal in aan shaqadii koowaad inaan suubanaha calayhi salaatu wasalaam aan ka dhigo wixii kusoo xigana markaas aan kusoo xijino hadduu ilaah yiraahdo saddexdaa buug kalena waxay soo bixi doonaan sanadkan dhexdiisa asagoo luqado badan u turjumaan hadduu ilaah yiraahdo si buugaagta kale kugu fududaato ama ajir aa u heshaad u bilowda asaga waxaan siri talada sheekhaasaan qaatay wuxuu yidhi camalkii suubanaha laga bilaabo acmaasha ku xigtay barakaysaa marka waajibkana waa gudanayay tanna qayb bay ka ahayd marka sababta aan usoo hormariyey waxay ahayd kuwaan horta lagu barakoobo hore u dhaca buuggaaga waxaad ku sheegtay in ay kugu qaadatay muddo sanad iyo 8 bilooda wax caqabadaha inta qoriisa kusoo wajaha ma jiraan caqabadaha way badnaayeen caqabada lama dhihi karo waxaa la dhihi karaa culays culayska koowaad wuxuu ahaa afka Soomaaliga in wax lagu qoro wuxuu u baahan yahay hubin aad u fara badan waxyaabaha hadda intaan hawshan ku jiray aan bartay waxaa ka mid ah markaa wax qoraysid baa loo haystaa inay adag tahay ma afka Soomaaliga ku tahay ma af kale ku tahay ma aqaano kulay aniga buug in la qoro waa igu cusub tahay dadka buugaagta qori jiray baa si fiican u garan kara marka culayska koowaad la kulmay waxay ahayd sixidda yani wax ka badan 5 bilood 6 bilood waxaaba qaatayba in la saxo luqad ahaan loo saxo maraajicda la saxo meelaha ayadaha iyo tafsiirkooda la saxo hubinta waxay qaadatay waqtiga ugu farada badan waxaan maleynayaa intuu buugga daawacaada gaarin ugu yaraan 6 jeer 7 jeer waa maray oo aan qalin u qaatay oo aan saxay marka taasa waxay keenaysay marka inaad ku mashquusho caqabadaas mid bay ahayd tan labaadna waxay ahayd tarjamada aad u sahlan inaad buugga soo qaato aad tarjunto inaad isku aadiso maskaxda Soomaaliga maxaa geli kara iyo maxaa waay baahida ay u qabaan siirada ay u qabaan marka labadaas ina isla heshaa waxay u baahan tahay qofkan Soomaaliga oo la hadlaysid sidee ula hadlaysaa haddana maxaa waay baahida siirada laftigeeda laga rabo inuu qofkan Soomaaliga barto iyo qofka Soomaaligaana maxay tahay inuu hore ka fahmo taana isku aadin bay u baahnayd waxyaabahan xasuustay waxaa ka mid ah canaawinta aan sameeyey Khadiija umulmu'miniin baan ciwaan waxaa u sameeyey la dhaho marwada koowaad marka nin sheekha oo culimadeedii ka mid ah Sheekh Cabdiqaadir Cabdidiiri la yiraahdo aan buugga u diray inuu soo akhriyo wuxuu yiri marwada koowaad meesha u deedo way fiican tahay laakiin afka Soomaaliga tarjamo waay first lady bay noqonaysaa sayid al-ula marka xubbigii iyo kalgacaladii loo qabay baa meesha ka baxaysa umulmu'miniin bay waxay u arki doonaan dadku markay akhriyaan qof iska caadi inay ahayd marka meeshaas hooyadii mu'miniinta ama hooyo Khadiija ku bedel waxyaabay runtii aad ii soo jiitay oo aan dib u bedelay ka mid tahay waxaa kaloo aad ii soo jiitay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aan si fiican u sii bartay marna markaad dhageysanaysay oo duruus akhrisanaysay oo iska mudaalaca ku jirtay marna waa maraad akhrinayso marka nabiga calayhi salaatu wasalaam hogaamintiisa ummadda siduu u hageeyey dagaalada siduu u hageeyey maskaxdiisii oo ummadda ku badbaadinay waxaasoo dhan aaday ii soo jiiteen buuggan waxaad u hibaysay aabaha la naxariistay Sheekh Maxamed Yaasiin Xaaji Daahir wax badanna waxaa hore uga sheekaysay inaa hooyo koris ahayd maxaa nooga sheegi kartaa taariikhda aabaha aaba Allah u naxariisto wuxuu ahaa markii hore nin culimo ah oo qoys culimaha ka soo jeeda markuu xoogahana qaadayna wuxuu noqday ganacsade aad iyo aad caan uga ah dhulka Soomaalida ay degto dhan ilaa Ethiopia ilaa Northeastern ilaa Nairobi ganacsigiisa gaaray
ganacsi aad u xoog badan oo markaas Soomaalidu ay ku shaqaysan jirtay oo baabuurey wax la dhahay ahaan jireen oo baawar tareelayaasha la dhahay ku shaqaysan jireen 1974 1973 1972 nin Nairobi degan oo baabuurka ganacsada oo tareelayaal leh ilaa Uganda ilaa Zaire ka bacdina ganacsigii iyo duruufas ku yimid darteed buu haddana wadankii Soomaaliya dib ugu soo laabtay marka nin waqtigiisa intiisa ugu badan ganacsi ku jira buu ahaa nin aad iyo aad u xagga diintana ku fiican cibaado badan salaatul leelka aad u tukada quraanka aad u akhriya caruurtiisana xorriyad fara badan siiya dhinaca kalena go'aanadiisu ay adag yihiin oo go'aanka uu gaaro aad iyo aad ugu adkaysta duruufo fara badan oo dalkii iyo dadkii iyo ummadii ay soo mareen buu qayb ka ahaayo Soomaalidu generation badan baa meel u guurguurayo mar meel u kala guurguurayo laakiin dadkii Ethiopia ka shaqeeyay Soomaaliya ka shaqeeyay ilaa Kenya ka shaqeeyay markii dambana duruufo ganacsi ah oo ganacsigiisii iyo duruufii uu ku jiray inta wax ku soo kordheen buu markii dambe wuxuu noqday dhankan Soomaaliya u soo wareegay markii dambena wadaad iska cibaadaysto aad ugu mashquulsan buu noqday marka sababta aan buuga ugu hubeeyana waxa weeye uu dhintay Aabba Allah naxariistay hooyaa nool marka waxaan ka fikiray bal hadduu aaba dhintay in asaga fadligeeda iyo ajirkeeda aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakada buuga iyo barakada waxaan qabanaynaa in Ilaahay dambi dhaaf uu ku siiyo insha Allah ta'ala markii hore ka sheekeynayay hooyo iyo inay hooyo ku soo karisay xogaa dadku waxay u qaateen in nina aaba jeclayn oo xogaa uu careysan camalay dareemayaan maadaama aad uga sheekayno hooyo bis ka sheekaysay inkastoo hooyadu ay ajir badan tahay oo diinta iyo meel kasta lagu sheego marka waxa ku qanci lahayd dadkaas wallahi de sida loo fasiro waaye oo tafsiirka marka la sameeyay si loo sameeyo laakiin still hadalkayga hore waa ku dhaganahay aniga hooyaday ay soo korisay hooyo korisaan ahay dadka Soomaaliduna hooyo korisku Soomaali kaliya ma adduunka oo dhan bay ka jirtaa Imam Shaafici hooyo koris uu ahaa culimada muslimiinta soo maray hooyo koris ahaayeen dad hadda adduunka madaxda ka ah hooyo koris ahaayeen marka waalidku de qof baa ku sameeya waxbarashadaada maskaxdaada duruuftaada sabab u noqdo marka taasa marka muhiimadda siinay muhiimadiina wali waa ay leedahay doorka nolosha uu hooyo ku leedahay waa ka badan tahay doorka ay aabba ku leedahay qoysas far badan ah jiro doorka uu aabba ku leeyahay uu ka badnaa doorka ay hooyo ay ku lahayd marka aabahay Allah naxariisto marar baan u duceeyaa inuu Ilaahay u dambi dhaafo laakiin markan soo korayay ilaa hadeertaan hada aabuu dhintay Allah naxariistay qofka aan ku xiranahay oo talo walba weydiiyo oo nolosheeda dhan kala tashto waa hooyaday oo aad u jeclahay runtii aabahayna hada duuba dhintay 20 sano ka badan waa mootan yahay Ilaahay ha naxariisto buugga sooyaalka Suubanaha dhacdooyin iyo dhambaalo yaa gacan ka siiyay daawacdiisa xageesa lagu daawacay buugga runtii waxaa jiro daarul cilmi oo buugta diiniga aan daabacda buug badan daabacday oo ayadu hawshan runtii qayb weyn ka ahayd inay hirgasho haday tahay xagga maraajicda haday tahay xagga hubinta haday tahay shaqo badan haday tahay hadda daabacada iyo haday tahay maxaan ku radaa qaybinta marka daartaasaan runtii hawshaas u wakiishay ayadana shaqada ugu fiican horena uga qabatay haddana ka qabanaysa la'aantoodna ma filaayo inuu guuleysan lahaa mashruuca buugga hadda qiimaha la iibiyo marka la fiiriyo xoogaa inuu qaali yahay mudda marka loo fiiriyo buugta la qoro hadda dalka la geeyay dalka waa yaala dalal kale badan waa la geeyay marka ma dhici kartaa in dadka qaarkood ay si lacag la'aan ku helaan sida ardada iyo maadaama ay ku talisay in xatii dadka ay ka faa'iideystaan ardada iyo jaamacadaha iyo meelaha asleeda ama iskuulada ma aanan ka fakirin inuu bilaash noqdo sababtuna ma ahan lacag kaliya in la raadinayo waxaan isniri markaan dadka daraaseynay shaygu markuu bilaash yahay ma akhrinayaan waxa laga yaabaa inuu soo maro uu ka gudbo dadkuna hadda dad social media ku xiran bay noqdeen oo inay buug ku fariistaan waa ku adag tahay laakiin nooc dhiirigelin waxa ah ma rabtaa inaad wixii barato Suubanaha sooyaalkiisa ma rabtaa inaad barato xogaa yar iska dhiib maxaan ku raahdaa akhri
intaas waxaa dheer dee kharashna wuu galay oo daabacad buu gelayaa, rar buu gelayaa, qaybin buu gelayaa, maktabadihii baa loo qaybinayaa. marka waxaasoo dhan baa markii la fiiriyay waxaa soo baxday in siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka daneynaya xoogaa yaroo shilimaada inuu iska bixin karo oo akhrisan karo. ma aanan hadda ka fikirin bilaash in lagu akhristo, laakiin marxalad kale waa laga yaabaa. laakiin waxaan ka fikirnay inaan luqadaha kalena u turjumno. hadda tarjamada waxaa socota oo English in loo turjumo oo Ramadaanka aakhirkiisa dhammaan doonta. 3 bilood soo socotana inuu kan English ka soo baxaan rajaynaynaa. haddii kaa u soo baxana waxaa ii qorshaysan inaan luqadaha localka regionka ah sida Afmaxaariga, Afsawaaxiligan inaan u turjumo. iyo fikrad kale jirto in af Turki asagana loo turjumo. marka adu ilaa sanadkan waxaan isleenahay 3 luqadood oo kale oo caalami iyo local ba inaan u sii turjuno oo si loo sii faafiyo fariinta meesha ku jirta. wax yaroo oo dhaqanka Soomaalida wixii loogu talagalay inta laga hagaajiyo qofkaasi uu akhrisan karo loogu gudbiyo. marka qiimo loo gooyo rasmi ma jira mase meel ka soo la geeyo hadba meeshaas la siday tahay iyo cidda markaas iibinaysa loo fiirina. arrimaha qiimaha iyo waxaas oo dhan waxaan u xil saaray shirkaddan Daarul Cilmi. marka iyada duruufaha fiirinaysa hadba siday u aragtay u gadaysaa. waxaad si weyn ugu mahad celisay dad badan laakiin ugu muhiimsan yahay Sheekh Cabdullaahi Sheekh Hanbali. kaalin noocee ah ka qaatay buuggan qoritaankiisa? run ahaantii waxaan rabaa inaan ku celiyo mahadnaqaas Sheekh Cabdullaahi Hanbali. la-aantiis buuggan nuurka tiftiin ma arkeen, banaanka uma soo baxeen. 3 shaqo buu ila qabtay. shaqada koowaad waxay ahayd fikraddu wax ku lahaa in la curiyo buu wax ku lahaa. qodobka labaad uu wax ku lahaana waxay ahayd inuu maraajicda diiniga ah, aayadaha qur-aanka, axaadiista iyo meelaha laga soo xiganayo iyo tiim asaga la shaqeynayay hawshaasna qayb weyn bay ka qabteen. wuxuu kaloo qayb weyn ka qabtay inuu buugga laftigiisa tala ku darsaday oo wixii uu isleeyahay macno bay usoo kordhinaysaa buu ku soo daray. marka Sheekh Cabdullaahi Hanbali la-aantiis runtii buuggaas ma soo baxeen. halbowle buu ahaa. iyo dad kale oo akhyaar ah oo ayaguna qayb weyn ka qaatayna waa jiraan, sida Maxamed Xasan Xirro, gudoomiyihii hore ee guddiga doorashada qoraa Soomaaliyeedna ah oo asagana sixidii af Soomaaliga qayb weyn ka qaatay. iyo san haddaba kuu sheegay Sheekh Cabdiqaadir Cabdidiiriyo aan u diray asagana akhrin guud, akhrin details kuma sameeynin laakiin akhrin guud buu ku sameeyay. iyo dad kale oo kala duwan oo aan talooyin ka qaadanayay. runtiina waxaan aaminsanahay buuggaanu inuu dadka nacfi weyn u tari doono. anigana muddadii dheeraad aan u fadhiyay wixii dhiiri gelinayay ahdaaf badan baa jirtay, laakiin ahdaaftii dhiiri gelinaysay waxaa ka mid ahayd kow xaqa nabiga calayhi salaatu wasalaam qof kastoo muslima ku leeyahay dee inaad gudatid. buuggana waa ku sheegay. qodobka labaadna waxay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala bini aadanka nimcooyin buu u qaybiyaa. nimcooyinka qofka siiya waxaa ka mid ah inuu magac yeesho oo shuhro uu yeesho. waxaa ka mid ah inuu xoolo helo, waxyaaba badan buu helaa. marka waxaan ku fakeray haddiiba magacaaga la yaqaano maad diinta iyo dacwada ugu adeegtid oo dadka iyo nebigana isku bartid oo meeshaas aa uga faa'iidaysid. marka runtii Sheekh Cabdullaahi Hanbali doorka uu kitaabka ku lahaa door aan laga maarmaynin buu ahaa. khayr allah siiyo, shaqo fiican buuna ila qabtay. dhacdooyinka saameynta kugu yeeshay buuggaaga ku sheegta waxaa ka mid ah oo xusuusatay in darsi ku saabsanay siirada nabiga oo masjidka dabaqeynka ee Bakaaraha ku yiilay uu ka akhri jiray Sheekh Cabdullaahi Cali Xaashi. haddii aad xoogaa dib noo celiso xusuustaada ka waran xilligaas noloshii Fahad, sida qur-aanka aad ku baratay, diinta iyo xirnimadaadii. horta masaajidkaas masaajid dabaqeynka la yiraahdo suuq Bakaaruhu ku yaala. hadda inuu sidii u shaqeeyo ma aqaano, laakiin Sheekh Cabdullaahi Cali Xaashi baa darsi maalinta Arbacada ah buu ku lahaa. runtii nin aad iyo aad xamaasi u ah oo annaga jiilkanaga markaan joognay aqoontiisa adduunyada ugu leeyahayna ay aad noo soo jiidan jirtay buu ahaa. oo warbaahinta adduunka waxay qorayaan, siyaasadii adduunka waxay qorayaan iyo siiradii nebiga buu isku dhex samayn jiray oo maado macno laho qofka maskaxdiisa ku haraysa kasoo samayn jiray. laakiin xusuusteeda sidaan buuggan ku sheegay waxyaabaha ku haray waxaa ka mid ahayd markaad darsiga tagto qofka asagoo saa u taagan oo dhegeysanaya unbaa cashirku dhammaanaya
ilaa qiyaastaada intay baxdo aad u malaynaysid badagaalkii badar inaad taagan tahay oo aad fiirsanayso mararka qaarna intay isaga laftigiisa xamaasoodo buu miiska garaaci jiray oo xoog ku garaaci jiray wuxuu lahaa marka awood oo aad iyo aad u weyn dhanka kale sheekh daahir oo cabdi oo hadda boosaaso sheekh ka ah masjid rawda fadhiyo caalim weyn oo Soomaaliyeed ah asaguna masaajidka ceel hindi buu fadhiyay oo kitaabo ka akhrin jiray darsigii iigu horeeyay oo diini ah oo aan nolosheeda dhageystana sheekh Cabdiqaadir sheekh daahir oo cabdi baa iigu horeeyay oo masaajidka ceel hindi buu joogay habeen makhribahan imid si fiican baan u xasuustaa suuratul qasas safxada u dambaysa وفسرها فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا وفسرها مركما مرحلة أنا وحنا سلا عشر كور ريو قاعد حتى سياسة وهايو ودرسي كور ريو مساج قاعد كتمت مركم مساج كانوا بوحي وأنا حسوستها الشيخ ظاهرنا مركز أنين أو دايرنا وقها دنيرنا وقها حرو مركز مساج كوصاب بلابيو وأنها dadka sheekha uu aqoon karay ama ay sheekaysan kareen kuma aanan jirin laakiin runtii xusuusteeda aad buu ugu haray afar maalinna tafsiir buu akhrin jiray maalinna siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam buu akhrin jiray culimada kale oo dacwada ama saxwada al-baraaruga islaamiga waxa la yiraahdo uu ka yara dhaqan duwanaayo inuu dadka wax baro dad soo saaro maskaxdiisa ku weyneed xamaasada badan kuma weyneyn dib baan waxaan ka darsayaa sidoo u shaqeyn jiray iyo sidoo wax u akhrin jiray inuu dad soo saaro oo tafsiirka soo bilaabo dhameeyo hadana soo bilaabo dhameeyo culimadii kale oo ka bacdi aan wax ka akhristay intii uun jiilkanagii dacwada islaamiga soo dhaxgalay oo saxwada islaamiga soo dhaxgaleen intay akhristaan qaar badan oo kamid ah waa akhristay kutubadan xadiista tafsiirka inta culimada ay ka akhristaan ka bacdina Nairobi waxaan aad ugu la saaxiibay nin sheekh horuntii dhintay Allah u naxariisto Soomaalida ay wada taqaano oo la yiraahdo Sheekh Maxamed Axmed Rable Boqolsoon buu caan ku yahay jiilka hore aad u wada yaqaan haddana kulli dadku way yaqaaneen muddo 3 sano aan xiro u noqday oo waliba waxaan u noqday oo adeege qofka asaga la fadhiyo oo la joogo oo mararka qaar danihiisa u qabto kutubadii salafka hore marka akhriso waxa is leedahay meelo badan buu kaga dabeecad yahay mararka qaar waxaan arki jiray inuu asagoo u lahaan jiray hal joog عمامد كوفية خميس هل جوجاس مركو أسبوعي لو جر عمل بودقني دار هدا هذه الله كان دتك وقيقي من جري ريرا الدنيا ما أهين وحيوان كحسوستنا وحاكم إذا هبينك مركو ساقع جوسي بر قرآن بو آخرين صلاة الليل بو تكن ما أنت أقدر دنيسي وحق الدعوة دي بو قبل هبينك مركو سيحنا يا دنا جوسي بر بو آخرين يا مركو رنتي نين نلوشي سو قرآن نكو بالله قرآن ku dhameeyo buu ahaa aqoonteeda labaad oo diiniga ah oo xoog xirnimo fiican aan ka qaatayna waa sheekhay hadda magaciisa aan dhowr jeer sheegay Sheekh Cabdiqaadir Cabdi Diiriye oo aqoon kala duwan leh aqoon diineed leh aqoon maadiyana leh kutubada asaasiga ah xoogga u wadnaa oo xirto markaas akhrisan jirtay ragii aan ka marsaday buu kamid ahaa muddo dheer buu firaaqad noo helay oo annaguna aan ka faa'iideysanay aqoontiisa culimada kale oo Ilaahay ii sahlay inaan ayagana kutubada qaar ka akhristo oo la sheekaysto oo wax ka dhageysto Sheekh Maxamed Haadi oo caalim weyn oo Soomaaliyeed ah oo culimadii waaweyned oo kontomeeyadii 60meeyadii dacwada islaamka wax weyn ka soo qabtay ah iyo Shariif Cabdinuur aan xirtii wax ka baratay asaga ma ahayn laakiin waaga waxa aad u jiray ajaladiisa aad loo dhageysan jiray marka aduu aqoon yar oo bawsi ah oo in yar oo aan ku cibaadeysto aan ka bartay oo man ka qaatay marka culimadaas oo qolo walba waxun baan ka faa'iideeyay laakiin fikirka nolosha iyo siyaasadda iyo fahamka iyo falsafada iyo afkaaraha nolosha meesha ay ka socoto qofkan aad iyo aad wax badan ka qaatay markii dambana aqoon shakhsiya iyo saaxiibtinimo aan isku yeelanay waa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo runtii muddo dheer muddo hadda 20 sano ka hor aad ugu mashquulay inuu fikir xoog ka saaro wuxuuna kamid ahaa culimadii runtii afkaarteeda ku yeelatay saameynta ugu weyn ku yeelatay ilaa markii dambana aan ka saaxiibnay laga yaabaa inay habboon tahay inaan sheego siyaasadda markaan soo aaday baan kala tashtay wuxuu igu yidhi aadan iska dhaaf
waxba aadin faraha ka qaad wixii aad danahaaga qabsan kartay ummadda wixii aad u qaban karto u qabo inaa xoogaa ku yara mamanahay buu arkay oo aanan ka haraynin marka hadal markii siyaasadda aan dhex galay aan arkay inay runtiis tahay baan ku dhex arkay wuxuu igu yiri nin siyaasadda Soomaali iska dhaaf haddaa gelaysa laakiin mar baan kuu sheegay markaas markay gaarto sug waa markay baan ku iri wuxuu yiri waxaa la ciyaaraa bahal la yiraahdo chess carabiga shatranji waa lagu dhahaa shaxdeynay u dhowda marka waa ciyaarta ay dhahaan ciyaarta boqorada maskax baa lagu dheelaa oo marka la ciyaarayo marka ciyaar kale waxaa jirta la dhaho laadhuugu marka dee waa saan unbaa dhihi wixii kaaga soo baxa unbaad arkaysaa marka wuxuu ugu yiri siyaasadda Soomaalida waa laadhuuye intay chess ka noqonaysa iska sug marka adu sheekhi warkiisa ma yeelinay waa waxan baa iska dadabaash laakiin runtii saameyn weyn buu igu lahaa ma asaga maadaama siyaasadda iyo faham badan oo u haysto muxuu inuu wax ku biiriyo xatee ama talooyin uu siiyo muxuu kugu diidanay asaga culamo marka la fiiriyo gaar uma aha xataa siyaasadda waa fahamsay markuu khudbayna marka aragtid waxaan u maleynayaa inuu dad badan baa saas ku yiri oo anagaaba ku niri ma adiga laftigaaga soo gashid laakiin muu jeclaa wuxuu aaminsan yahay bulshada in qiimaha ay ku jirto in bulshada la dhiso aqoontooda la dhiso fahamkooda la dhiso noloshooda la dhiso runtii Sheekh Mustafana aqoonta ku jirto waxaan aaminsanahay ummadda Soomaalida inaysan si fiican uga faa'iideysanin waxaan dhahaa waa maskax caalami ah laakiin luqad loo kala ku hadasha haddii uu af carabi ku hadli lahaa ama English ay noqon lahaayeen duruustiisa ama carabi noqon lahaayeen runtii aanan ku dardaraynin Sheekh Mustafa wuxuu la mustawa noqon karay culimada waaweyn ee caalamka islaami fikradaha ku soo kordhiyay Maxamed Qutbi iyo Abu La'la al-Mawdudi iyo laakiin maskax caalamiya uu xambaarsan yahay laakiin luqadii baa waxay noqotay luqad local ah laakiin 20 sano u dambeysay wuxuu yiri iska dhaafay dadka qaal Allah Taala iyo qaal Rasuulullah in baa u sheegay warkii tirada badnaa uma sheegayo waxaan u maleysaa booskii oo fikirka iyo falsafada iyo nolosha iyo diinta 20 sano 30 sano ka hor oo Sheekh Mustafa xoog ku lahaa hadda waxaa ku jira Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo Mareykanka degan oo noloshiina akhriya diintiina akhriya fahamkii siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo noloshana aad u akhriya runtii asaguna door weyn buu buuxinaya inkastoo weli aan qabo mid Sheekh Mustafa aan ka qabayo asaguna luqad local ku hadlaya asagoo fikirkiisu oo fikir caalami uu yahay marka culimadaas culimo runtii jiil isdhexdhexlaya oo soo bedelaya waa jeeska hadda inay gaartay in kale ma dib ma xiriirtay ma weydiis ayaan dhaxan mar la hadlay marka wuxuu ugu yiri wali jeeska ma gaarin wali waad ku jirtaa Allah ku sahlo agaasima Fahdo aqoon intee la eega u leedahay diinta waa maadaama ay qaybo badan tahay hadda qaybta wax ku qorta siirada ay tahay axaadiista iyo fiqhi iyo hataa qaybta kale naxwaha wax badan jira marka ma dhamaan wax badan ka haysataa mase qayba gooni xoog u saartaa jirta ma yani hadda aqoon diineed runtii aan hadda leeyahay aqoontaas aan leeyahay ma jirto nolosheeda intii ugu dambeysay oo marna warbaahin baan ka shaqeynayay marna waxaan ka shaqeynayay siyaasad laakiin tababarkii la diyaarinayo hore inaan sheekh noqday ahayd yani wixii marka hore la igu tababaray oo imaam masaajid waa noqday saan hore u sheegay macallin dugsi quraan waa noqday arday fara badan baan kiciyay oo quraan baray masaajid imaam waa ka noqday muddo dheer waliba haddii jidkaas aan kusii joogi lahaa waan u maleynayaa inaan xoogaa meel fiican aqoon fiican iisoo kordhi lahayd laakiin markii horena dee xoog badan iyo aqoon badan ma yeelanin oo aan dhihi karo hadda sheekh baad ku noqon kartaa fanni aan isleeyahay xoogaa waxbaa kaaga bilaabana fanniga usul fiqiga baa ka jira oo runtii daraaso fiican aan ka haysto markayga horena aan si fiican isleeyahay in macquul ah waad ka baratay intii uun la baran karay haddana faham fiican ka haysta siyaasaddan iga anfacday oo usul fiqigu wuxuu mar walba ka shaqeeyaa wax inuu kala doorto mafsado maslaxada laftigeeda qiibo u kala saarayo fahamka diinta oo nolosha lagu dejinayo marka runtii barashadaas laftigeeda nolosheeda iyo maskaxdeeda wax weyn ay ka tartay laakiin buugga siirada aqoonta luqadda carabiga aan u lahaa iyo intii hore aan usoo bowsaday baan isku daray intaas waxaa ka soo dhex baxday
dad badan waxay aamin leeyihiin agaasime nin siyaasiya haddana taliya sirdoon soo noqday oo sirdoonka soo shaqeeyay inay diin ka dhigistaan marka dadkaas maxaa ku qanci lahayd maxaa inay buugiisa diin ka akhristaan oo diino qoryo la yiraahay dad badan ma aamini karaan marka loo fiiriyo oo habka soo marta horta saddex jawaabood waaye su'aashaas aad ay u soo noqotay marka inaan hadda ka bogto waa jeclaan lahaa siyaabo kala duwan ay igu timaadaa horta number 1 nolosha in la kala saaro waa fikir oo secularism ah oo almaani ah oo la dhaho adiga masaajidka ku joogtaa masaajidku ekow adiga siyaasadda ku jirtaa siyaasadda ku ekow adiga sirdoona ku jirtaa ku ekow marka horta qofku hadduu muslim yahay waxaa laga rabaa inuu ilaahayna caabudo ummadiisana uu caawiyo oo wuxuu u qaban karo uu qabto hadduu wax kale u qaban karin xataa inuu uusan dhibaataynin haddii kalena cilmi iyo maskax wuxuu ku kordhin karo uu kordhiyo marka horta mararka qaar kaftan baan dhiibaa waxaan dhahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam lama kala lahan ninka masaajidka jooga iyo ninka sirdoon ka shaqeynaya iyo ka siyaasadda ka shaqeynaya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa wada leeyihiin nabi buu u wada yahay nabigana calayhi salaatu wasalaam intaba waa ahaa dowlad buu ka dhisay madiina dagaalkii ghazwat al-ahzab oo kii ugu halis badnaa muslimiinta ku soo dhacay ah oo duulaankii ay khatarta u galeen oo madiinaba in laga qabsado ay ka gaartay oo ay cabsadeen muslimiintii oo nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiiba ay dareemeen culays iyo ghazwat al-khandaq oo يعني wixii lagu burburiyay dagaaladaas ficil sirdoon u ahaa kuwan in war loo sheego kuwan balanta waa idin kaga baxeen la dhaho kuwana war loo sheego hadal baa lagu burburiyay marka horta shaqada sirdoonku waa shaqo ay ku dhisan tahay taariikhda iyo taariikhda suubanaha iyo taariikhda islaamka ma jirto dagaal nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qorsheeyay uusan cadowgii ula dagaalamayo xogtiisa raadinin marka hore dad uusan u dirinin mako nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u joogi jiray dad usoo warrama oo xogta usoo dira oo u keena marka horta sirdoonku nolosha dadka muslimiinta qayb weyn buu ka ahaa hadda sheekh waxaa jira soomaaliduna taqaano caalam muslimiinta oo dhan ay yaqaaniin dadka xerta soomaaliduna ay u taqaano sheekha qoray maqaamaat alxariiri oo dadku markay luqadda baranayaan mucallaqaad iyo maqaamaad waa labada faniyo labada kitaab ay si fiican u akhristaan wakiil sirdoon buu ahaan jiray markii intuu sirdoonku ku jiray buuna kitaabadan buu qoray salaaxudiin gowlaha ugu waaweyn uu gaaray markuu wax dhisayay waxay ahayd inuu sirdoonkaas uu xoog u dhisay taariikhda islaamka marka akhrisana saameyn weyn bay ku leedahay xataa dowladii islaamka markay dhismaayeen iyo markay dumaayeen taariikhdii siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam saameyn weyn bay ku leedahay waxaan rabay inaan hal sheeko ku daro oo runtii aad iyo aad ii anfacday markii nabad sugidda agaasimaha la igu magacaabay baan waxaan u tegay sheekh bashiir axmed salaad oo hay-adda culimmada soomaalida madax ka ah sheekh soomaaliyeedna runtii aqoon fiican leh ah ana u haysto inuu yahay nin aqoon diineed oo buuxda oo fiican oo macquul ah leh marka waxaan ku yidhi meeshaasaan u socdaa xilkaasaan qabanayaa cabsina waa iga haysaa aniga haddee nolosha markaan soo kornay mogtahay sirdoon iyo nabad sugid iyo meel uun maxay ahayd wax si kale ah psychologically culays weyn bay lahayd haddana shaqadii saxaafadii dhinaceeda ka timid oo wax qarid marka caalam oo aan aad uga baqaayo waa markaan soo galayay marka intaan u tagay baan ku yiri sheekh bal ii fatwo marka runtii hadalku igu dhahay ilaa hadda ma ilaabin sidoo igu sharxayna waa ku yara qaboobay wuxuu igu yiri number 1 dalka wuxuu leeyahay qawaaniin iyo shuruuc qawaaniintaas iyo shuruucdaas waa inaad dhowrtaa oo aadan ku xadgudbin laba wuxuu yiri meesha ka shaqeynayso waxay leedahay habraacyo iyo xeerar bay leedahay yani warka si baa lagu hubiyaa haddii qof maxkamad la geenayo xeer baa la maraa haddii yani xeer baa jira ku qoran dalka midkiisana waa inaa ilaalisaa buu dhahay kan hay-adda u qoranna waa inaa ilaalisaa qodobka saddexaad oo aada u sheegay waxaa waaye wuxuu yidhi adaa la rabaa inaa qalbigaaga ku xukumo waa sidee baan idhi wuxuu yidhi qalbigaaga wuxuu kugu xukumaya waxa aad samaynayso ma qof baad ku dhibaateynaysaa ma dan shakhsi aad uga shaqeynaysaa ma dulmi baad uga shaqeynaysaa
mise dantii guud oo xeerkii hay-adda iyo xeerkii dalka wixii badbaadinayay waajibka ku saarnaa baad gudanaysaa yani wuxuu ujeeday baan u fahmay inaadan qofte maadaama adiga aad dhib shakhsiya ugu qabto inaadan u marin sharciga inta u maroojiso aadan u aadin tan afraadna wuxuu yiri waa la khaldami karaa haddaa khaldanto waa inaad laba tallaabo qaado horta khaladka inaad ictiraafto waxaan waa ku khaldanay magteediina iska bixiso noocay rabta ha noqoto raaligelin ha ahaato qof hadduu dhib soo gaaray dhibkiisii magtiisii la bixiyo haddii marka afartaas shay aad ilaaliso wuxuu yiri waa shaqo fiican haddii laakiin afartaas aad mid ka mida ku xadgudubto haddii adiga unbaa khalad isku sameeyey marka runtii yani waxaan aaminsanahay qofku marba hadduu muslim yahay waa inuu noloshiisana waajibka ka saaran waxa waaye wuxuu qaban kara inuu qabto marka isma diideyso ka waran dardaarankii muddaa joogta meesha ma waa fulisa mas'alada waa fuliye ma dhihi karo laakiin waa dadaalay aad aan dadaalay intii aan dadaali karo waa dadaalay leena sirdoonka waxaan ku dhisay wixii maqaasidda islaamka ka shaqeysaaba shantii maqaasid islaamka ka shaqeysaa yani nafta bini aadamka in la ilaaliyo dadka qiyamkooda oo diintooda ugu horeyso in loo ilaaliyo maalkooda in loo ilaaliyo cirdigooda loo ilaaliyo marka hadii sirdoon intaas uu ka shaqeeyaa oo falsafadii hore oo sirdoonka hadii waa laga soo tagay adduunka waagi hore falsafada sirdoonka waxay ahayd in ninka boqorka ah ama ninka madaxweynaha ah asaga iyo dadka la kala ilaaliyo laakiin hadda sirdoonka wuxuu ilaaliyaa dadku ilaaliyaa muwaadiniintu naftooda iyo uu ilaaliyaa dowladnimadana uu ilaaliyaa oo qarankana wuxuu u yahay waardiye marka labadaas haddaad ilaaliso haddii kulle bini aadan baa tahay oo 100% ma noqon kartid malaa'ig laakiin haddaad xuduudaad horta taqaano waa inaad u dhawaato mar walba inaad ku dadaasho laakiin dadku waxay dhahaan xilligii fahad uu joogay nabad sugidda xilligii ugu awoodda badneed oo dadka iyo madaxda aad loogu siyaasadda loogu isticmaali jiray ahayd sheeko dheer waaye waa qaarkood waa propaganda qaarkoodna haddii wixii qaanuun baa jira qaanuunka laftiisa qofku inuu dardara ma aha waa inuu meel celisay ay jirto oo la istaajiyo marka fahad oo siyaasiyana waa arrin fahad oo taliyana waa sugidna waa arrin kale culimada diinta xiliyadan dambe culimo caan oo muddooyinkii dambe soo baxaa jira oo kuwii hadda ka sheekaysa qaarkood ka duwan inkastoo Sheekh Mustafa oo hadda caan yahay marka ma jirtaa dad caan ah ku dayato oo hadda culimada hadda xilligan ma jiraan oo ama la kulantay ama adoon la kulmay aad ku dayato walaa culimo fara badan oo muslimiin ah jira hadda Soomaalida ka baxsan ba Soomaalida intaan kaaga sheegay iyo kuwa kale fara badan ba way jiraan oo qaarkood aan xer u noqday qaar aan waxyaabo qaar ka boodsaday qaar aan la fariistay iyo qaar ala mustawa caalam islaami culimo ah oo intaan Yemen joogay oo jaamacadda aan ka dhiganay culimo fara badan oo caalam islaami rag ugu weynaa qaar kamid ah ama jaamacadda maamulay ama la joogay waxa kamid ah Sheekh Abdul Majid Zandani oo caalim weyn oo cilmiga ijaaska ku takhasusay jaamacadana asaasay hadda uu dhintay Allah u naxariisto oo runtii calaaqadeena aysan marna go'in intuu noolaa duruufihii Yemen xataa ka dhacay iyo wixii ka dambeeyay mar walba xiriir joogto ah ana lahaa kutubo fara badan oo jaamacadda ka dhigay asagu qoray caalim kale oo Ciraaqi ah jiray asaguna runtii oo fiqh al-Hanafi ku takhasusay iyo usul fiqiga Abdulkarim Zaydan la yiraahdo asaguna waa dhintay Allah u naxariisto iyo caalim kale asaguna muftiga Yemen ba noqday Maxamed Ismaaciil Amraani la dhaho fiqiga aad iyo aad ugu ahaa mutakhasis kaftan badanna lahaa oo sheekooyin fara badan mar walba ka sheekeyn jiray aqoontiisana ay ku jirtay aqoon oo bulshada u dhow ahayd marka culimada Soomaalidu ama culimada caalamka islaami saameynta kugu yeelanaya hada sheekh walba meel uu ka saameeyay mid fikirku ka saameeyay mid dhaqanka suuban buu ka saameeyay mid tacliintu ka saameeyay marka mid walba intii aan isleeyahay waa ka faa'iideysan kartaa waa ka faa'iideystay Soomaalidu culimada Soomaalida qaybo badan ay u qaybsamaan adiga waxa la sheegay inaad qaybtu haabiyada kamid tahay horena waxa uu sheegtay inaad ururkii al-Ittixaad aad xubin ka soo noqotay marka qaybta salafiyada jadiida qaybtan ah mase waaba nin kaligiis hadda ahoo diintiisa ku filnaatay maadaama kitaabina ka qortay ay gaartaa noqoto hadda meel ay ku xirantaa ma jirto
ما horta dee xagga diinta xerow xataa ma gaarin waa bowsi baan joogay wahabina dee koox ma ahan magac iska naynaasa waaye oo dee horta qoladaan ahay waa ma sheegayba salafina waan ahay nidaam ahaana ururka itixaad baan u ahaa marka magacyadan aad loo kala qaybinayana ma jecli runtii haddana xoogaygu wuxuu saaran yahay inaan siyaasadda aad uga shaqeynayo muddadii u dambeysay marka dee cid kasta oo khayr wada inaan khayrkaas kala shaqeeyaan rabaa koox hadda aan leeyahay kooxdaas baa kooxdaas ka fiican ama kooxdaas kuwa ka wanaagsan ma jirto itixaad alislaami oo hadda ictisaam ah dee waa ururkii aan kusoo koray oo aan ku barbaaray welina aan ka aaminsanahay inay dacwada Soomaaliya iyo diinteeda wax weyn ay u soo qabteen culimada kale iyo xarakooyin kale ixtiraam weyn iyo qadarin weyn baa naga dhaxaysa haday tahay culimada suufiyada haday tahay culimada salafiyada qaybaheeda aqoon muslimiinka tabliiqa in walba dee majaalku ummadan u buuxinayo in lagu taageeray ay mudan tahay runtiina hadii laftigeena uu maskaxaana waa u kornay daahaana waa u kornay kala qaybinta markii lagu shaqeyn jiray waxa wadana uma tarayso islaamkana waxa uma tarayso waxa fiican inta la iska fahmi karo in laga shaqeeyo haddana runtii waxa u maleysaa biseelkaas dee waa aragtaa shirarka culimada xamar iyo lagu qabto darafyadii aan is arki jirin intay isugu yimaadaan ay mawaaqif siman ay soo qaadayaan marka jihaadigana dee saa u rabtid ma aqaano laakiin anuu meeshaan dhexdan baan iska joogay meel kale uma leexan buugga sooyaalka Suubanaha wuxuu ka kooban yahay 12 cutub inta badan qayb yaraa gadaal ka raacisay oo aad ugu magac dartay falaqayn iyo fiiro gaar qaybtaas maxaa u leeyahay runtii waxaa jira fanni dhan ilaahay idinkiisna haddii waqti aan u helo oo cumrigan ilaahay daayo waqtina aan u helo kan waxaan ugu talagalay siirada Suubanaha oo sooyaalka Suubanaha u bixinay waxaan ugu talagalay qof aanan aqoonin ama qof raba inuu af Soomaali ku akhriyo baan ugu talagalay marka falanqayntu waxa waaye fiqi dhan waxaa jira wax la yiraahdo fiqh siira oo kitaabo gaar laga alifay culimo waaweyn ay wax ka qoreen marka runtii markaad daristo Suubanaha calayhi salaatu wasalaam waxa ku soo baxaysa inuu saddex shay waaweyn ummadda u hayay koo caqiidada inuu ka dhisay oo ilaahay inuu ku xiro cibaadadiisa ilaahay kaligiis inay caabudaan alla ku xirnaadaan hawsha labaad oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ummadda u hayayna waxay ahayd inuu bulsho ahaan isku xiro oo bulsho isku xiran ay u noqoto wuxuuna shaqada ka bilaabi jiray wax bulshada isku keenaya yani masaajidka suuqa ayaga in la walaaleeyo wax bulshada ay ku wada noolaan karaan madiina markuu yimidna saddex shay oo asaas oo ayadana ka qabtay horta dadkii inuu walaaleeyo masaajidkii markuu u dhiso suuqii u dhisay dadkii inuu walaaleeyo dadkii deganaa ee reer madiina ahaa ee muslimay iyo kuwii aan musliminna inay reer madiina yihiin inay aaminaan oo madiinadnimadu magaalada qofka ka wada degan inay noqdaan dad asaas u ah waana kan la heshiiyey yahuudi oo heshiis la gaaray markii dambana waxa la yiraahdo dastuurkii madiina sameeyay waxyaabaha kale oo u baahan tahay in aad u daristo oo in casharo laga soo saaro u baahan waxa waaye nabiga cali salaatu wasalaam sulhul hudaybiyah soo ku sameeyay saxaabadii qaarkood diideen oo Umar uu arkay in la isjilcinayo oo la isjabcinayo uu arkay sulhul hudaybiyah ana fatx makka keentay oo tamaysay xataa quraanka nasr iyo fatx laba uu kala saaraa yani nasrigu waa inaad meel gaarto laakiin fatxigu waa inaad umadiina hesho oo dadkiina ay qalbigooda aad hesho marka nabiga cali salaatu wasalaam Makka markuu imaanayay dadkii qalbigoodii uu furtay ee magaalada kaliya ma uusan furanin waxaan arkaysaa inuu dadka darsi jiray oo ummadda uu xoog badan oo gelin jiray sidii u fakarayaan waxyaabaha aniga Suubanaha calayhi salaatu wasalaam aad iga soo jiitay waxa waaye dhacdooyinka siirada marka akhrisana dhibaato yar markay dhacdo ama xadath dhacdo ay timaado noocay rabta ahaato mustaqbalku la akhrin jiray ma fiirin jirin tan see lagu xaliyay wuxuu la akhrin jiray tan maxay mustaqbalka ay saameyn ay kaga yeelanaysaa wuxuuna isku dayi jiray mustaqbalkaas inuu wanaagsanaado oo wax ummadda u fiican
inay noqoto wax kaloo xooga saarayana waxay ahayd dadka inay noolaadaan oo dhaqaale sameeyaan oo dhaqaale helaan oo isku filaadaan oo qaninimada iyo taajirnimada yani quraankana aad buu u dhiirigeliyay dadku inay shaqaystaan nabiga kaleey salaatu wasalaam uu dhiirigeliyay hatta quraanka marka akhriso jihaad marka laga hadlayo maalka horeeya iyo nafta asharatul mubashiriin dad wada ladan bay u badnaayeen qoysas ladan ka yimid ayaguna lahaa dad oo dhaqaale haystay Abu Bakar waxa ugu badan uu qabanayay waxay ahayd nin ganacsadaha oo shaqeynaya buu ahaa qofkii muslim la dhibaateeyo Bilaal ibn Rabaah asaga iibsaday qofku arkay inuu dhibaateysan yahay jiscin iyo wuxuu siin karo siinayay marka runtii marka nabiga kaleey salaatu wasalaam fiiriso noloshana inuu dadka fahamsiiyo buu waqti badan midda u dambayso nabiga kaleey salaatu wasalaam bulshada uu fahamsiinayo waxay ahayd waxaan lagu la yiraahdo al-qiyam values ka qofka in la dhiso damiirkiisa in la dhiso oo balanta runta nabiga kaleey salaatu wasalaam dhagar ma aqoonin yani qofka haday balan wada galaan حتى هذا قال يا بلانتاس وفلين جري نقرتنا دقن أنبياء معهن الأنبياء ولا تقدر بلان كمان بعض مركا قفك مسلم كانوا حيابها الربعين وبرتي كم تاعي مركا وسير هذا وحقومهم يسماها دعدة إنها خرستي وحقومهم يسموها واي إنها دعدة عشرة كتيرو آد كفايدو سي قف كان فاليو كيسا قيم كيسا شخصي أي اسمان وحالة ده حتى markii dawladnimada loo yimaado musuqmaasuq waa la diriraa marka leeyahay sida ugu fiican oo musuqmaasuq loo diriri karo guddi musuqmaasuq la dagaalan maahan waa damiirka laakiin haddii qofku damiirkii ka tago qof faaruqa ama qof meeyda oo iska socdo dabeel raaca sadarteed dal ma badbaadin karo ummad ma badbaadin karo hadaa aragto qof leader oo wanaagsan waa qof damiirkiisa nool yahay haddii qofka damiirkiisu wax ka halaabaan qiyamkii buu gadi diintii buu gadi dalkii buu gadi dadkii buu gadi hadhowna waxa soo bixi qof qiyam ka baxay sadarteed kutubta ugu horeyso quraanka iyo soo banaha taariikhdiisa qofka qiyamkiisa marka meelaha u baahan in la sharxo oo dadku si ay ugu xirmaan bay ka mid tahay falaqayntaas iyo fiirgaar aan markaan akhrinayo waxaan islahay xaaladda dalka iyo adduunka hadda soo yahay iyo dawladaha ka shaqeeya gaar ahaan Soomaaliya maadaama uu maamulka soo shaqeeyay waxaas oo nabigu sameey jiray oo hadda heshiisyada iyo dhimrinta iyo ashaygiisida ku dabaqi doonaa marka ina xaaladda ku dabaqi weydo maxaa keeno si guud leh u sheekayso waxa waaye waxaan buug ugu talagalay in dadku siirada ka bartaan laakiin fiqiga waa kitaab gaar ah u baahan tahay marka insha Allah hadii Ilaahay cimri idaayana waa soo wada taas u baahan in waaqic lagu dul akhriyo oo lagu fiiriyo luqadda carabiga si fiican aad u taqaanaa وانا كسو شقيسي لغة عربية هلكي كبرتي ما ماشا كبرتي iyo sidoo kale muhiimadda afka carabiga uu leeyahay waxa uga hadashay buugga soddon afraad ee buugga ma isleedahay maadaama siira ka hadlaysa in luqadda carabiga lagu qoro ay ku habboon siirada kasoo kasoo sheekaysa sababta Soomaaliga ugu qortay haddii carabiga ku qori lahayd iyo hadda يا أسلادها وحيسة بدنتها هرنا وحنا وجهك إن لا ترجمة دونه بوكان أو لغة كلا دونه فربنا لغة ترجمة دونه مركا عربي قد بعمر كميديا سائلات عربي بولي كما فكر إن لغة ترجمة مسكح هذا وحكي إيمانيسي دور كاس وبوحة شق في عم بالغ قبتي وعلماء فربنا ورنتي آدي هذا علمي ولا أقون له بعد وحوق قري qof kastoo luqadda carabiga yaqaan wuxuu helayaa maraajic iyo kutubo aad u fara badan buu helayaa marka aniga maskaxdeeda waxa ku jirtay baahida meelaha ay ka jirto inaad buuxiso laakiin waa fikrad fiican in laga fakaro oo nusqa carabiga la sameeyo fikrad fiican laakiin focuskayga wuxuu ahaa dadka aanan carabiga wax ku akhrisanin wixii aad gaarsiin karto gaarsiin carabiga marka adiga halkee ka barat marka hore carabiga yaraanteediina waxbaan ka yara bartay oo iskooladii carabigan wax ku soo bartay aniga oo masaarida baan wax ku soo bartay dugsi hoose dhexe iyo qayb kamid ah dugsiga saraba luqadda carabigan ku dhigtay jaamacadii carabigan ku dhigtay markii dambana waa ku shaqeeyay marka ani tacliintayda oo asaasiga ah ilaa heerkeeda jaamacadda kulli waa luqadda carabiga iyo saxaafadan jeclaana
iyadana way kaalmaysay xerownimadii hore oo xogaagii aan soo akhristayna way kaalmaysay marka waxaan oran karaa luqadda carabigu yani noloshayda oo dhan bay ku jirtay waxa hadda hal mar aan bartay aan dhihi karo ma aha siirada nabiga marka laga hadlayo waxyaalo badan oo la isku khilaafsan yahay jira iyo xataa axaadiis saxnimadooda arrimahaas sidee xal ugu heshay tusaale ahaan dhalashada nabiga oo kale oo Soomaaliduna ay mawliidka ay u taqaano oo kamida waxyaalaha la isku khilaafsan yahay marka arrimahaas sidee xal ugu heshay horta arrimaha khilaafka waa ka fogaaday intaan ka fogaan karay waa ka fogaaday waxaan ugu talagalay inaan si tartiib ah loo akhristo waan ugu talagalay waana sax midda dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda taariikhdii doodeeda way jirtaa exactly taariikhda doodaa ka jira sida aan sameeyana waxay ahayd doodii oo dhan baa meesha ku sheegay oo aan sideeda ugu sii daayay marka maadaama aniga aanan shiikhna ahayn qof go-aan gaari karana aan ahayn oo mas'alo sharci ah aan ka fatwoon karin oo aan oran karin saasaa sax ah waxaan ku talagalay xuduudeeda inaanan ka bixin wixii aan marjic u hayo oo culimmada ay sheegeen dee marjicaasaan cuskanaya aniga yani natiijo aniga aan gaarayo ma ahayn marka haddaad rabto inaad wax faa'iideyso waxaa fiican inaad positionkaaga aadan ku ekaanin saa darteed xataa haddii mas'alo khilaafiya aan meel aaday waa meel aan culimmada ka soo xigtay go-aan aniga aan rajaxay oo aan awooddaas ku gaaray aqoon diiniya uma baliiba marka masaa-isha khilaafiga horta ka leexan kara waa ka leexday kuwii khilaafi ku jirana xoogaas sidii aan u taataaban karo unbaan u taataabtay dhalashada nabiga waxay ku beegneed sanadka loo yaqaano sanadkii maroodiga sidoo kalena waxaa caan ku ah siirada hijriyada koobaad iyo labaadba oo maangalyo ay asxaabtu weydiisteen boqorkii xabashada ee Itoobiya sidoo kale waxay ku beegan tahay xilligii isla boqorkii xabashada boqorkii kale oo weeraray Kacbada marka aad ugu fasirtay buugaaga waa ka sheekaysay xaaladaha ay soo mareen arrimahaas oo dhan aad uga sheekaysay marka sidee dadka ugu fasiri kartaa labadaas boqorkan asxaabta badbaadiyay oo nabadgeliyay iyo midkaas ku duulay Kacbada horta way dheeraanay hadii la sharxo laakiin waan soo koobaya su'aal runtii su'aashaana su'aal aad u fiican waaye haddaan si kooban u dhaho nin caaqil iyo nin doqon oo bay kala ahaayeen abraha nin doqon oo kibri oo aad u qooqay buu ahaa najaashina nin caqli badan oo xakiim oo aad u degan buu ahaa waxaa ka garan kartaa abraha shirkada dhan markii laga soo tago wuxuu dhisay dhismo oo leeyahay waxaan ku bedelayaa Kacbadii hadda kadib halkaan la imaan doona nin carab oo xanaaqsan baa yimid meeshii buu wasakheeyay uu ku dhex feegaaray dadka culimada qaarta waxay sheegaan ku saxarooday saxarada intuu soo qaado darbiga ku daadaadiyay albaabka maruu ka baxayna wuxuu yiri abraha loo sheego meesha inaysan Kacba noqonayn nin tuqyaan ku jiro oo qooqan buu ahaa oo awood far badan isdhibay oo meeshana inqilaab ku qabsaday oo boqortooyada matalaya xataa inqilaabay oo dadkana aad iyo aad u dhibaateynayay buu ahaa dhacdada yartahay ay ku filaydba inuu meeshiisana iska dhaqdo oo hadduu u batana ninka carabka ciqaabo buu horta u haligay boqortooyadiisii oo dhan buu u haligay oo kan dhahayo Kacbada dhan baan soo burburinaya ilaa markii dambe uun sidii quraanka lagu sheegay uu ku dhacday baalam tara kayfa fa'al rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول يعني قصص قرآن كسجن أو كجيل آخر سنة بني آدم شو نين كبريء بوها أو طغيان كل حي صدرت المرة بدن وحيابا لقى فهم وحكم إذا قفك مركو حكمك كون الراجو أود فرب بدن أو هلا وحير أو يكون فلانتها إنه نينك عرب كها إنه ama xiro ama asaga talaabo ka qaado masaajidka meeshiisii beenta ahayna uu iska dhaqdhaqdo umbu tuqyaankii wuxuu u aaday meesha dhan baa soo burburinaya marka qaar qofku markay awoodda ka tambadato oo qooq uu gaaro wuxuu gaaraa inuu wax walba uu sameeyo najaashi laakiin waxay ka mid tahay waxyaabaha nabiga calayhi salaatu wasalaam
nebinimadiisa caddaynta u ah bay qeyb ka tahay. oo nabiga caleyh salatu wasalaam isagoo jooga wuxuu daraaso ku sameeyey xaakimka markaas xabashi haystay oo najaashi ahaa. najaashi horta de waa magac hadba qofkii jooga loo bixiyo sida fircawn oo kale ah, laakiin isaga magac kale lahaa asxum baa la oran jiray. nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu u darsay ninkan shakhsiyadiisa, waana meelaha aad ka garanayso suubanaha sida liidarnimadiisu sida ay ilaahay subxaana watacaala hibooyin uu siiyey. wuxuu yihi ordaha ninkaas aada, sababtana uu sheegay wuxuu dhahay malikun laa yudlamu cindahu, waa nin agtiisa aan dadka lagu gardaraysanin. marka isagoo kiristaan ah, diin cusub dad sheeganaya, deegaankiisi ahayn, ba wuxuu dhahay hawshiina u taga, dhibaato kalama kulmaysaane. marka labadooda taasay ku kala duwanaayeen. nina ninaan dadka dulminin buu ahaa, nina nin dulmi ka shaqeynayo buu ahaa. marka farqigaasaa u dhexeeyey. buuggu wuxuu ka kooban yahay noloshii suubanaha dhalasho ilaa iyo geerida. waxaa kusoo koobtay inuu kusoo gabagabeysay tilmaamihii suubanaha. ma jiryaa cutub saameyn kugu yeeshay ama si gaara ah ugu tali lahayd in laga faa'iideysto oo cutubyada kale wax weyn dheer? waxaan ku talin lahaa in kitaabka o dhan la akhriyo kulligiis in la wada akhriyo, kabacdina qofka asaga ii sheegoo dhaho warniyo meeshaasaa aada ii soo jiidatay ama meeshaasaa u baahan tahay inaa badisid. muhiim waayo qodobka inaan sheego, siirada nabiga caleyh salatu wasalaam markii la qoraayo waxaa lagu qoraa inta badan taariikhda la raacaa. yani dhacdadan sanadkaani dhacday, sanadkan dhacdadan dhacday, sanadkan dhacdadan dhacday. aniga saa ma aadin, waxaan aaday wixii islaba inaan israaciyo. yani maalan duulaanadii nabiga caleyh salatu wasalaam waxaan ka dhigay hal cutubaan ka dhigay, tilmaanta nabiga caleyh salatu wasalaam wax gaaraan ka dhigay. marka hadba inta israaci karto waxaan ugu talagelayay qofka Soomaaliga maskaxdiisa macluumaadkan hal mar inay wada galaan. laakiin haddii qofka dagaalkii Badr aad ka hadasho, haddana kii Tabuk ka hadasho, haddana kii kala uu ku wareeraya. marka waxaan isdhahayay si uu intii isla socotaba inaan israaciyo. markaas unbaa qofka rabaa inay usoo baxdo wixii uu ku baraarugo, wixii uu u baahan yahay in lasii kordhiyo. xataa cutubyadu ismaalika qaarna waa dhaadheer yihiin, qaarna waa kookooban yihiin. marka hala wada akhriyo. dagaaladii jihaadiga ahaa ee uu suubanuhu galay, aragtidaada kuwee ugu saameyn badnaay, maxaase laga kororsadaa isleedahay? aniga shakhsiyan waxaa aada igu saameyn badnaa dagaalka Badr oo furqaan ba ahaa, kii lagu kala baxay ahaa. wixii uu nabiga rabay caleyh salaatu wasalaam iyo wixii dhacay waa kala duwanaadeen. laakiin hadda ay ku sheegayeen nabiga caleyh salaatu wasalaam wax kastuu sameynaya mustaqbalku la akhrin jiray. marka waxaa usoo baxday meeshaan hadduu ka laabto inuusan ka jug laga soo kici karo inaysan ahayn. uuna ku adkaystay oo ilaahayna aad buu u baryey oo yiri haddii kooxdan yarta ah la baabi'iyo ilaahay wax dambe ku caabudo maba arki doontid. hadal saas macnihiisa ahaa oo kama qaala caleyh salaatu wasalaam. marka taas aad bay saameyn igu yeelatay sidii nabiga caleyh salaatu wasalaam wuxuu filayey waxaan ahayn buu galay, ayadiibuuna wuxuu ku talagalay inuu guulka keeno. runtii waa meelaha u baahan qofka xataa leadershipka raba inuu tababarto. qorshaad dejinaysaa, qorshahaagii wax ka tan badan baa kugu imaanaya, inaadan ka boodinooda ka guurinaya, isla ayadii dhexdeedii inaad qorshahaagii ku dhex samayso. midda labaad aada ii soo jiidatay waxay ahayd hadaaye in yar baan ka sheegay sulxul xudaybiya oo nabiga caleyh salatu wasalaam wax kasta uu ka tanaasulay. maxamedu rasuulullaahi baa la qoray hala tiruu dhahay, tiruu yidhi. haddiiba waxay dhaheen anaga aan adiga rasuul kuuma naqaano, maba aanan kula dagaalanaynba. marka maxamed cabdullaahi baan kuu naqaanaaye maxamed bin cabdillaahi qor bay dhaheen caleyh salaatu wasalaam. marka iyadina wuu aqbalay. iyadoo maka ay u muuqatana waxay dhaheen laabo, meesha ka timid baad ku laabanaysaa, sanad kadib baad soo noqonaysaa oo aad cimraysanaysaa adoo weliba shuruudahaas ku cimraysanayo. waxaa usoo baxday maan isleeyahay awoodda maka taaluu darsi, awooddiisana wuu darsi,
wuxuu kaloo darsay haddii hadda xoog meeshaan aad ku gashid waxa aad qabsan doontid maxaa waaye waxa qabsan doontaa waa inaad soo cimraysato haddii marka hal sano ka bacdiba cimradii dhib la-aan lagu ogolya hal sano ka bacdi inaysan waxbo saa darteed waxaa laga bartay waxaa ka mid ah marka aad heshiis dad la gelayso waxaa la rabaa inaad mustaqbalka aad la fiiriso mustaqbalka marka wax ku dhibaayo maa ku jiro hadduuse wax ku dhibaayo ku jiro ha aadin haddii laakiin mustaqbalka wax kuu fiican oo ku jiro midaan yarta ah xanuunkeeda u adkayso meesha xataa dadka cilmiga militariga bartay ay dhahaan goobta inaad ku adkaatid hadafa ka dhiganin waxaa hadaf ka dhigataa dagaalka inaad ku adkaato yani goobta inaad ku jabto hadday keenayso inaad dagaal ku guuleysato hadafka koowaad maaha inaad goobtan ku adkaatid hadafka waxaa waa inaad dagaalka weyn aad ku guuleysato xataa heshiisyada marka la saxeexanayo waa meelaha u baahantay in laga akhriyo ah war waxaan mustaqbalkaaga muu fiican yihiin hadda xanuun ma leedaha xanuunkan qaado laakiin waxay ka anfacaysaa mustaqbalka dheer bay ka anfacaysaa dadka qaar baa sheega taariikh ahaan u wariya Saddam Hussein iyo Ayatullahi Khomeini dagaalkii 8 sano markuu socday oo uu dhamaanayay baa waxaa loo kala qorayay xabad joojinta inay dhacayso 11 habeenimo 59 daqiiqadu markay tahay 59 second markay marayso inay xabadda u dambeysay ay dhacdo marka waxay dhahaan dadka taariikhyahanada qaar wax dee uu la sheego waaye laakiin xigmadda anaga hadda waxaan uga jeednaa Saddam Hussein wuxuu yiri marka xabadda u dambaysa anaa ridaayo Khomeini warqadii loo geeyay wuxuu yiri xabadda u dambaysa muxuu u ridaaya hal mar aan wada ridno asna markiisa tuura anna waa tuuraya marka 11:59 second markay marayso intaysan 2000 ku istaagin qof walba ha tuuro wuxuu tuuri karo Saddam Hussein warqadii loo keenay wuxuu yiri maya shardi waxa waa asaga inuu soo tuurin aniga bas ha tuuraayo yani waa duleyn bay ka tahay ka adkow Ayatullahi markii loo geeyay warqadda saa u akhriyo wuxuu yiri keena waa saxiixaya maxaa dhacay markii dambe la weydiiyay wuxuu yiri heshiiskan aan saxiixayo sun aan la qaayo waay laakiin asaga u dhimanayo anigu ma dhimanayo Saddam Hussein u dhiman doona laakiin anigu ma dhiman doono laga bilaabo maanta Ciraaq hoos u socon doontaa Iiraanna kor bay u socon doontaa marka qofka hogaamiyahana waa la rabaa mararka qaar go'aanaas Nelson Mandela waxay ka sheegaan go'aankii cafiska uu ku gaaray dadkiisa xataa uu ka qariyay yani meeshu soo istaagay markaas uu dhahay qof walba cafisu yahay qof wax loo haysto ma jirto asoo ka baqay hadduu kala tashan lahaa inay u diidi lahaayeen marka leadershipku mararka qaar way rabtaa inaad gaari karto go'aano dadkaaga kharaar ku ah laakiin adiga aan mustaqbalka aragtid bogga 75aad buugga waxaad ka cusubtay heshiisyadii nabiga uu galay nabadgelina xiskulkiisa ahaatee yahuudii madiina la deganeed oo la galay iyo inuu dhisay dawladda islaamiga waxaa kaloo soo qaadatay inuu ahaa heshiiskaasi dastuur ku badan macnaha marka meeshaas waxaa laga qaataa inay bannaan tahay muslimiintu inay dastuur ay samaystaan ay qortaan dadka qaarna way diidan yihiin waxay leeyihiin dastuur quraankaan oo ah ma jiri dastuur marka ma la dhihi karaa heshiiskaas dastuur uu ahaayo meeshaas waxaa laga qaadan karaa in muslimiintu ay dastuur qoran karaan horta haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam madiina markuu yimid qoraal buu sameeyey oo reer madiina u kala qoray oo yahuudii madiina deganeed u kala qoray iyo muslimiintii oo ahayd magaaladan in la wada ilaaliyo nabadgelyada la ilaaliyo qofka soo weerara qof kale laga difaaco haddii yahuudi xataa la soo weeraro la difaaco fatx maka marka ay dhacayso waxay ku dhacaysay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo carab qaarkeed xulufo la ahaa iyo reer maka ayagana xulufo lahaa labadii xulufo isku dhacday maka oo dhan saasay ku timid marka waxaan u jeedaa dastuurku waa qoraal un shirkada hadii la sameynayo maxaa la sameeyaa dokumentiga la kala qortaa go-aanka yaaleese go-aanka loo kala qaadanaya dokumentigu see loo sameynaya hal shay waa in laga ilaaliyo wax shareecada islaamka toos uga hor imaanaya oo diinta diidaya yani shay diintu ay xaaraam ka dhigayso waa inaan meesha lagu xalaaleynin
صدرتها شيء كسته شرط كسته أو شريعة الإسلام كسهر جيدو يعني وباطل حبك مجران كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل صدرت وحانو ما عرفت أبحي دستور أبحي ورقد أبحي كونتراكت أبحي وحابة الدستور كوحالة لها هشيس بلشو وكونتراكت وعقد اجتماعي مركا وانا عمل دنيوي هرت ودad كانوا sidii u kala noolaan lahaayeen madaxweynahan xukuumaya awoodiisa golaha xeerbeegtiga awoodooda golaha wasiirada awoodooda xafiisyada dawladda awoodooda intaas ku qoran dastuurkana qodobka koowaad waxa ku qoran dastuurta muslimiinta badankoodna uu ku qoran yahay hadda kulay kaanaga ku qoran yahay wax kasta oo shariicada islaamka ka soo horjeeda inay tahay waxba kama jiraan saas ay ugu cadda hadii jumladaas marka meesha ku jirto wixii soo haray waa maamul iyo shuruuc iyo qawaaniin marka dadku inay wax ku heshiiyaan waayo oo ay isku xukumaan ay ku kala amar qaataan oo awoodana xafiiska leh qofku ma leh ma jiraan wax aad isleedahay waa ka tagtay oo inaad ku qortay ahayd buugga ama xataa inaad wax ka bedeshay ahayd marka uu soo bax kadib hadda sidii aan ku talagalay buu ahaa oo maxaan rabay inuu buug weyn noqdona ma rabin inuu yaraadana ma rabin waayadan dadka researchka cilmi baaris sameeyay dadka si wax u akhriyaan waxay dhaheen buug 300 page ka badan dadku ma akhrin karaan ba wax laba maalin 3 maalin ay ku dhameyn karaan bay rabaan marka daabacaad labaad daabacaad saddexaad buu yeelan doonaa laakiin runtii kuwa laftigooda waxaan filayaa wax weyn aanan ku kordhinaynin hadii khalad ka soo baxayna la saxo hadii meel u baahan in la yara hagaajiyana la yara hagaajiyo iyadoo dadka waxa ka imaanayo aan ku qaas qaadan doono laakiin waxaan isleeyahay marxalad labaad aan u gudbi karnaa oo ahayd fiqiga siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam laakiin hadda intaan way base way ku filanta asaas way ku filanta waxa jira waxa la dhaho adigu yaa tahay hadaa rabto in adiga yaa tahay ogaato de hebel baan ahay ma ahan adigu waxa tahay waxa aad ahaan jirtay waa tahay dad muslim ahaan jirtay taariikhdaadu ay islaamnimo ahayd wana islaamnimadii barato dadkaaga barato deegaankaaga barato waliba anaga Soomaalidu dhaqamo aan leenahay baa jiro oo qofka wiilka ilmaha markuu yar yahay abtirsiyaha la bara aba saas way reebel baatay marka dadka Soomaalida waxaan oran lahaa marka abtirsiyaha bareysaan kan nabiga kaleey salaatu wasalaam ka hormariya marka qabiilka bareysaana sooyaalka subanaha bara waxa si weyn sanadihii dambe u soo baxay saameynta Imaaraadka Carabta uu ku yeeshay geeska Afrika iyo bariga dhexaba sidaas heerkaas ku gaaray wallahi horta hada Imaaraadku waxay u baahan yihiin daraaso dheer ay u baahan yihiin waqti dheer ay u baahan yihiin la kadib la soo koobo aniga qaybta Soomaalida khusayso man ka hadlaya